بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga Soomaaliyeed dhan aad idin salaamaya. waxa way walaalkii maslax miday. waxa jiray arrimo badan oo media dhex socda oo hadda shalay iyo maanta aad uga dhex guuxaya balse aan xaqiiqadeeda la ogeyn oo kulba si loo dhigayo. waxa way horta way jirtaa xaqiiqda ah in shalay shil u dhacay. shilkaasi qadar bay ahayd. waxa way horta dadku waxay isku haystaan ay dhahayaan dad badan oo waxa jira macnihii idin gaariga waxa saaraa sharmo iyo maslax iyo asxaab kale oo maslax dhaawac soo gaaray qaar waxay dhahayaan sharmo dhaawac la soo gaaray qaarna waxay adoo kolba si baa loo sheegay arrinkaas. waxa way laakiin arrinka hadii xaqiiqada aan idin sheego waxa way aniga maslax miday ahaan horta gaariga ma saarnayn anigu gaariga ma saarnayn markii ay baxayeen hawlo kale ku jiray oo xalinayay balse nasiib ahaan walaalkay sharma iyo asxaabtood garanaysiin kulli marka dadka asxaab yihiin way israacaan way iska magaalada iska soo dalxiis tagaan. gaariga lixii ku saarnaayeen afar wiil iyo laba gabdhood. qadar ilaahayna waa dhacay oo shilkaasna dee waxa way mid loo kasinay ma ahayn oo ilaahay amarkiisa ayay ku timid. waxa way qofka bil aadankana hadduu waqtigiisa dhamaado ama uu ilaahay damco inuu wax gaarsiiyo cid ka hor istaagi karta habeeraha ma jirto. waxa way halka iyada ah waxa way dhacday in uu gaariga gudoomay gabadha gaariga ku geeriyootay Allahu naxariisto ilaahay ehelkeygana uga dhigo samriye iimaan siiyo naxariistii jannada ka waraabiyo. gabadha waxa halis ku gashay gaarigu markuu gadoomayay dhinaca daaqada gabadhu markuu gaariga gadoomayay markii gaarigu sii dhacay ayaa waxa dhacday in daaqadii furantay. daaqadii markay furantay ay gabadha dhinaca daaqadii ka dhacday laamigiina ayay ku dhacday. saasiyadu wax u soo gaareen ay ku geeriyootay. shantii kale ee saarneed gaariga may ka dhex bixin gaarigii dadkii ku jiray waxa may ay gaarin. sharmaaka Cabdi Naasir waxa way sagara wax ma soo gaarin oo uu noo qaba alxamdulillah wax garaad soo gaarin mid macallinkii gaariga la saarnaa way wada caafimaad qabaan alxamdulillah. waaye gabadha kaliyaad ayaa wax ku noqotay oo ka geeriyootay. waxaan leeyahay qadar way dhacdaa Allah u naxariisto ehelkeygana sameeyo iimaan ka siiyo. waxa way arrinka kale leeyahay saar idin ku sheegay anigu gaariga ma saarnayn wax way soo gaarin alxamdulillah nacad qaba aan caafimaad qaba. laakiin xogaha inkastoo isoo gaadhay shock iyo naxdin oo hadda ilaa hadda igu jira. waxa way sidoo kale alxamdulillah waaye arrinka kale leeyahay sharma xabsi ku jiraan waxa way qadar baa dhacay oo qofka bil aadanka ama fanaan ahaado ama madaxweynaha ahaado ama wasiir ahaado waxa way hadduu shil dhaco qofka bil aadanka waa la xisaabtamaya. arrinkaas sharmana maxay ugu xayran yahay wax kale ma aha. gabadhana reer ka soo jeedaayo dad baa dhalay sanadada dad baa dhalay reer ka soo jeeda. waxa arrinkiina si wanaagsan loogu xaliyay waa la saaf kartay. gabadhiina alxamdulillah waa la aasay. gabadhina soo aasnay labadii reerna way wada hadleen waana saaf karteen in la heshiiyay oo markii gabadha la bixiyo yaa la saaf kartay. wax dhibaato meesha jirana ma jiraan. Soomaaliya waxaan idin leeyahay qofka bil aadanka markay dib ku soo gaadho sharaf iyo sumcad waxaynu ku lahayn qofka walaalkaaya ama cadowga la noqdo markii ay dhibaato ku dhacdo in loo naxariisto macnaheedu loo duceeyo iyaan nagu sharaf u lahayn oo lagu yaqaanay dad Soomaaliyeed in la boonbooniyo oo been iyo politic in lagu raadiyo fiis laga raadiyo oo lacag lagu raadiyo qof inaga baxay oo loo qaalay noo ah. waxa way arrin aad u foolxun weey. waxaan Soomaaliyeed u sheegayaa walaalahay wuxuu dhacay arrinka yaa la sii boonboonin oo yaa wax lagu sii tirtirin. qofba inaga baxay inaynu u duceyno oo quraan marino ayaa laga baahan yahay. maaha in aanu anagu ka faa'iideysano qofka dhibaatada soo gaadhay oon macnaheedu u adeegsano inaan ku ataagno ama sumcada ka gudbino. waxa way mid kale oo sharmaake aniga dad saaxiibo kaliya ma wada doogtiin waa qof aniga walaal ah iyo walaalay noqday oo alqaale inuu wada nahay. Soomaaliya shalay sharmaake markaan Djibouti wada aadayay in Djibouti ugu waday wax macnaheedu qabiil ama qabiilad oo dhex socota ma ahayn wax horumar noo soo kordhay
iyada ahayd inanoo kuwa faraxsanaydeen inaan dalkii walaalihiin ah ee Jabuuti aan aadno oon micnihii dalkii labaad aan kusoo wareegno oon sumcaddii iyo quruxdii iyo soo bandhigno maadaama saas aniga iyo Sharmaaka aan yeelay waxaan ku heshiis ku gaarnay haddii marba aan Jabuuti isku raacnay oon masraxii qurxinay oon dadka shacabka indhooga soo jiidanay in aynu xagga labadeen aanu ku kala hadhin oon meel walba Soomaali leedahay insha Allah inuu aadno oon qurxsano oon dhalinteena iyo dadkeena baan soo caawinay inaga ahayd waxaanu heshiis ku gaarnay markaas Jabuuti uga dhamaano in anagna markiis aan Puntland soo aadno oon dalkii ku soo wareegno oon qurxsano wax kale laga ma ahayn kulleydii dadka aqalka saaxiibka oo fahmayaan arrinkan si kale loo dhigin koonfur galbeed baa inaan tagno way noo qorshaysnay inaynu aadno Puntland inaynu aadno Khaatumo State micnihii inaynu aadno Jigjiga inaynu aadno Somaliland intaba anaga waxay nooga ahayd inaan dadkeena aan waqti la qaadano xumaantada iyo wanaaga sida adigu labadaas aad ka dhigato wax walba way ku noqonayaan hadii aad wax wanaag ka dhigato wanaag way ku noqonayaan haddii aad xumaan ka dhigato adiga xumaan bay ku noqonayaan marka insha Allah waxaan aad baan idin salaamayaa arigu saas ku jira saas uu u jira soo duceeyo insha Allah rabbana dhamaanayaan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.